guddida fulinta hay'adda Madafaan Community Development Organization waxay xilka la wareegeen bishii koobaad ee sanadkii 2019. guddida ayaa maalmo kadib gudagalay dejinta qorshayaasha mustaqbalka fog iyo ka dhow oo ay ku lamaayihiin hami fog iyo dadaalo joogta iyagoo la tashiyo joogta la sameynaya guddida boardka sare ee hay'adda iyagoo ka duulaya fulinta qorshayaashooda iyo sida ay hay'adda ugu ridi lahaayeen jidka talmoon ayaa waxa ay bishii afraad isla sanadkaasi 2019 ay qaadeen tallaabadii ugu horeysay oo ay ku dhagax dhigeen dhismaha madrasad cusub oo ay ka hirgeliyeen deegaanka Carawadhowr ee tuulada Abaarso ee gobolka Maroodijeex waxaana isla bishii lixaad ee sanadkaasi dhamaystireen dhismaha madrasadaasi iyagoo u dhamaystiray dhammaanba wixii ay u baahnayd sida kuraastii, miisaskii, samuuradihii, buugaagtii iyo sidoo kale mushaharka macallimiinta oo laga bixiyay qasnada hay'adda taasoo ilaa hadda si joogta loo bixiyo. sida ay maanta u nimidnaa kuna waa laba arrimood bay kusoo ururaysaa waa inaynu wareysano in xog ka qaadano waxqabadkeennii hore oo madrasadani kow ka ahayd iyo abaalmarino aanu siin doono ardayda dhigata madrasadda si aynu uga farxino mar haddaynu soo booqanay. aad baad idinkuna mahadsantihiin ururka Madafaan mar kasta nala jooga aad baanu u salaaminaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxyaabaha lagu xasuusan doono guddidii fulinta ee ururka Madafaan inta ay xilka hayeen ayaa waxaa ka mid ah siyaas u dhigidda barnaamij sanadlaha oo si joogta ah sanad kasta bisha Ramadaan ururku u qabto kaasoo ay ugu magac dareen afuri walaalkaaga baahan waxaana fulintiisa ay bilaabeen bishii shanaad ee sanadkii 2019 waxaana dadka bishaasi la afuriyay ay ahaayeen kuwa kor u dhaafay 120 qoys oo danyara. ururka ayaa isla sanadkii 2019 dayactir ku sameeyay isla markaasina u dhamaystiray agabkii u baahnaa dugsiga Bildaan Qurux ee deegaanka Abaarso oo muddo dayacnaa kaasoo ay ku riyaaqeen dadka deegaankaasina waxaana adeegyada uu ururku ugu daray dayactirka dugsigaasi ka mid ahaa kuraas, miisas, samuurado, buugaag iyo bixinta mushaharka macallin ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi. kulay dhismahan aynu halkan ka arkano ururka Madafaan ayaa dib u habeyn ku sameeyay taasoo kale dhaqaale badan iyo maxay ahayd waqti badan oo kaga baxay ujeedadu waxa weeyaan inaanu bal deegaankani sidoo u ilaashaday iskuulkan aan dayactir ku sameeynay iyo agabkii hore loogu keenay sida ay u ilaashadeen inaanu kormeer ku soo sameeyno. ujeedada labaad waxa weeyaan inaanu maanta aanu soo gaarsiinay agabka halkan ka muuqda oo ardayda guddoonsiin doono oo kale isugu jira jaayisada la siin doono ardaydii kaalmaha ugu sareeyay sanad dugsiyeedkan 2018 ardaydii ku guuleystay imtixaanaadkii la qaaday. dadku naguma cusba oo horaan isku naqaanay waa dad dadaal badan oo karti badan oo marag uga nahay sida ay mar walba heeganka ugu yihiin wax qabashada deegaanadooda. anagu cid kasta oo wax qabanaysa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waana nolol shaqeynayna. isla bilowgii sanadkii 2020 ururka oo mar kale ka duulaya fulinta qorshayaasha samata bixinta iyo u gurmashada dadka ku nool deegaanada ka fog magaalooyinka ayaa ceelbiyoodyo baahin weyn loo qabay ka qoday deegaanka Dhaboolq ee gobolka Maroodijeex halkaas oo ururku ka hirgeliyay 3 ceelbiyood oo waaweyn kuwaas oo ilaa hadda gu iyo jiilaal la manaafacadsado isla markaasina dad iyo xoolaba ay u riyaaqeen. dhammaan marti sharafta kala duwan ee ku sugan madasha maanta aynu kaga jarayno ceelkaas oo noqonaya kii saddexaad ee hay'adda khayriga ay hirgelisay Madafaan Community. dhammaantiinba waxaan niga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ee dahabigeed maanta na siiseen waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin. waxqabadkooda iyo intii jireen way kala badantay ilaa bilow ilaa maantana waanu ag taagnay haddii aanu anagu guddidanahay taladaannu ku xoojinaynay ilaa maantana waanu idin xoojinaynaa waanu idin garab taaganahay. gaar ahaan waxaan gaar u salaamayaa Nasir Xasan Barro halkan fadhida hawshana bilow ka hayd inamadana horboodiisay waayo dumarku marka mashaarada ku karab raacinayaan waa ka qaalisay rag waxqabadkiisa. inantaasi wax badan bay qabatay inantaasi way noo dhagan wulaatay waanu ducaynaa Allah barakeeyo. inkastoo guddida fulinta iyo mas'uuliyiinta ururkuba ay sameeyeen dadaalo nafura
haddana bal aynu si gaara u eegna madaxii maaliyadda Nasre Xasan Barre iyo dadaallo u gaar ahaa kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inay 2 sano oo xidhiidha ay abaalmarino guddoonsiinaysay ardaydii ugu sarreysay dugsiyada ay hirgeliyeen ururkani iyadoo dhanka kale dhiirigelin u samaysay arday gaadhaysa 7 arday oo ururka u sameeyey kuna wareejiyey hab casriya oo khuseeya dhinaca maaliyadda kaasoo uu ku shaqayn doono isla sanadkani iyo socdaalkaygoo ahaa inaan guddoonsiino ardayda maanta kaalmaha hore gashay kaasoo ballan qaaday sanadkii 2019ka inaan ardayda kaalmaha hore gashay aan guddoonsiiyo oona ku dhiirigeliyo systemkan oo ah system haddii la eego organizationka ka caawinaya waxyaabo badan maadaama organization ku shaqeynaya hab manual waxa uu systemkan u fududeynaya inuu ku shaqeeyo hab automatic ah oo uu qofku isagoo xogtii ay ka lumi lahayd oo buugga uu ku qorto amba waxyaabaha badan oo uu ku nood garaysto uu ka lumi lahaa laakiin u fududeynaysa inuu computerkiisa uu ka isticmaalo wuxuu leeyahay kalow mas'uuliyiin isbedbedelaysa mas'uuliyiintaasi waxaa rajeynayaa mas'uuliyiinta kale ku wareejinayaan in insha Allah training-ka caawa halkaan ku qaadanay mas'uuliyiinta kale naga dambeysay insha Allah iyaguna training-kaas oo kale ay siin doonaan si aanay hawshu istaagin bilihii 2 iyo 3 ee sanadkii 2020 ururka Madafaan Community Development Organization ayaa hirgeliyay dayactir ballaaran oo lagu sameeyay masaajidda dayacna oo ku yaalay deegaano hoos yimaada gobolka Murudijeex bishii shanaad ee isla sanadkii 2020 ururka ayaa markii labaad si xiriir u fuliyay barnaamijka aynu hore u soo xusnay afuri walaalka waxaana bisha Ramadaan ururku afuriyay 150 qoys oo danyar ahaa maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa raashinkii aan ugu talagalnay agoonta iyo danyarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu ilhaamiyay shaqadan samafalka inaan qabano ayaa awalan mahad celinaynaa mahad celin kale waxaan sameeynaa qurba joogta iyo qaran joogta ganacsatada qof kasta oo muxsina oo ka soo qayb qaatay hawshan raxmaan raxiim horta marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxa mahad leh dadka sharafta iyo cista leh raashinkan macada badan la nasiiyay ayaan ku jeer u mahad celinaynaa Madafaan ururka Madafaan ilaahay halka ay ka soo saareen khayr iyo xasanaad badan Allah u galiyo anaguna waan u ducaynaynaa hoggaanka iyo mas'uuliyiinta ururka Madafaan oo wada dadaalada caawinta dadka u baahan caawimaadyada ayaa inta ay Hargeysa ka boqoleen ilaa bartamihii bishii 8 ee sanadka 2020 waxay gurmada iyo gargaar gaarsiiyeen qoys beedkoodii iyo xubno kamid ubadkoodii ay ku shuf beeleen dab qabsaday kuwaas oo ku noolaa magaalada Harta Sheekh ee dowlad deegaanka Soomaalida noola oo mahadnaqaynaa waynu ducaynaa waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha galo jidkan ilaahay u fududeeyo dhalinyarta ayay soo gashay halka boorka soo martay walaalkood ka soo damqatay noo timid aad iyo aad u mahadsanyiin halkii intii ku gudaha jooga sanadkii 2001 ayaa hoggaanka ururka Madafaan Community Development Organization waxay fuliyeen kormeer ay ugu kurgalayeen xaaladaha dugsiyada waxbarasho ee gobolka Murudijeex iyo deegaanada tuulooyinka iyagoo halkaasi gaarsiiyay agabyo waxbarasho oo dhameystiran isla bishii 2 ee sanadkii 2021 ururka Madafaan Community Development Organization ayaa ka qayb qaatay gurmada abaareed oo xilligaasi taagnaa waxaana ay booyada biyaha gaarsiiyeen dadka ku nool deegaanada Faraweyne iyo Abaarso ee gobolka Murudijeex bishii afraad ee sanadkii 2021 waxaa mar saddexaad oo xiriir ay hoggaanka ururka Madafaan ay fuliyeen barnaamijka bisha Ramadaan ee afuri walaalahaaga baahan kaas oo ay afuriyeen in ka badan 180 qoys oo danyar ah kuna noolaa magaalada Hargeysa in ka badan 180 qoys ay runtii halkan ugu qaybinayaan raashin waa hay'ad khayriya oo ballaaran kuma koobno Somaliland shanta qaaradood ee adduunka dad kala degan ayaa ku abtirsada hay'adan runtii waxaan u dhagan ugu shahay dad baaqa ka soo yeedha dadka masaakiinta ah dadka qaar baan xitaa ahayn baa furki wax ku afraanba alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaanu leenahay dadkaygana soo ajiibay ee soo xasuustay inta qaybinaysa
u halgamaysa ka soo qaaday inoo qaybinaysa way mahadsan ururka Madhaafaan ayaa bilihii 8 iyo 9 ee sanadkii 2021 waxa ay dhagax dhigeen isla markaasina ay hirgeliyeen deegaanka Balodide ee tuulada Abaarse gobolka Maroodijeex madrasad cusub oo nooceedu ku cusub yahay deegaankaasi markii uu ururka Madhaafaan hawshan u dhaqaaqay wax aliyaalo wuxuu meel ku ogaa ama waxa weeyaan meel u yaali ma jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la kaashaday iyo waxa weeyaan dadkii wax ku tuhmayay alxamdulilah waxa weeyaan ilaahay waa nagu guuleeyay oo inaga maanta ku daashoonana waxa weeyaan waxqabadkii iyo dadaalkii uu soo sameeyay ururka Madhaafaan maanta ilaa bari haddii la amaanana amaantooda lama soo koobi karo ururkan uu ka ducaynaa dhamaantay aad ugu ilaasantihiin dabayaaqada sanadkii 2021 ururka Madhaafaan ayaa gargaar u fidiyay qoysas ay guryahoodii ka gubteen magaalada Hargeysa hogaanka ururka Madhaafaan Community Development Organization ayaa sidoo kale fuliyay barnaamijyo dhowr oo tabarucaad oo kamid ah caawi dadkaaga baahan kaas oo ururku qoysas danyara caawimaadyo guryahooda ugu geeyay iyagoo aan filayn halkaas oo ay ka dhalatay farxad iyo ducaba ugu dambeyntii hogaanka ururka Madhaafaan Community Development Organization waxay u mahad celinayaan dhammaanba cid kasta oo kala qayb qaadatay fulinta howlahaasi adag ee ay bulshada u hayeen muddadaasi waxaana ay si gaara mahad celin ballaaran ugu dirayaan bahweynta qurba joogta ee ururka oo ah ilaha ugu muhiimsan ururka